soo dhawaada sheeko xiriir aad u xiiso badan 60 jirkii gabadhiisa shukaansaday iyo sheeko aad u xiiso badan waxaa qoray Liibaan Xirsi Jimcaale waxaa soo jeedinaya aniga Xuseen Geesi ah ku soo dhawaada qaybteeda koobaad waayihii Soomaalida baraha bulshada isticmaalkoodu ku cusbeyd ayaa oday 60 jir ah oo aan aqoon badan u lahayn balse xoogaa dhaqaale haystay waxa uu samaystay Facebook profile waxa uu saartay calaamada tawxiidka magaciisana waxa uu ku soo koobay Maxamed qofkii ugu horeeyay ee uu ku darsaday waxay noqotay gabadhiisii oo ah 24 sano jir garoob ah oo ayna Facebook u saarneed astaanta jaceylka love magac ahaana waxa ugu qornaa boqorada beledka halkii ayay isu barteen magaceeda waxay ugu sheegtay magac aan keedi sax ah aan ahayn isaguna waxa uu ku yiri Maxamed baa la yiraahdaa waxaan ahay ganacsade Dubai degan sanadkii oo dhan markii laga reebo bilo kooban dibadda ayaan ku mashquulsanahay da'deeduna waa 35 jir guurdoona waayada lama aqoon call video ama wicitaanka toosta ah ee muuqaalka in qadka la iska soo waco sidaas darteedna waxay isku afkarteen inay fariimaha uun ku sheekaystaan si ay haasaawahoodu u sii wataan muddo 4 bilood ah ayay isjukaansanayeen intaa hal mar ma aanay kulmin odaygu oo ganacsi ku mashquulsanaa awgeed sidoo kale sawirna ma ay wadaagin ee fariimo uunbay intaa ku wada hadlayeen beriga waxaa jiray taxadar laga qabay in Facebook sirta ku jirta la iska jabsado ama xogta qof kale uu ogaado sidaa darteedna odaygu waxa uu moobilkiisa ka ilaalin jiray dhammaan qoyskiisa oo ay gabadhu ku jirto muddo kadib waxa lagu ballamay in la ismeersado dhageystayaal qaybta xigta bal la socda